My name is Cody Charles Munga. I'm from Uganda, a country so friendly to Somaliland. Because if you went to university like Kampala International University, Caesar University, the biggest number of international students are from Somaliland. And I think that explains our close relationship. Today is a very important day. When you told me that I'm to give some remarks, I tried to put down a few things, but then I realized, why do I need to speak from a paper when I'm standing among colleagues here? And why do I need to use a paper when myself I have something to share with you? When I was 15 years old, I was in senior 2. And my country had just got out of war. And I went to school. In that school, there were 2 groups. There was a group that belonged to the dictatorial government, and there was a group that belonged to the new government in power. And there was a group of people who believed in democracy and people who believed in keeping the status quo. I was very small. I've never added on much weight, but I always had a big voice, and I always believed that I have a right to express my opinion. Now, there was a vice president who belonged to the dictatorial government who was coming to visit our place, our school. And we were told that the whole week we were not going to study, but we were supposed to be cleaning the environment because they were worried that probably labels would come and be near. And I raised my head on the assembly. I was very small, very small. But I always believed that I must express myself politely. And I raised my hand and I said, sir, you know, we paid school fees here to study. And when we pay school fees, it includes money that you should use to do your other activity. I said, look, we cannot spend a whole week here slashing. That's not part of the business. halkan aynu maanta joogno waxaan ugu talagalay inaan wax iska weydiino xuriyadda hadalka Somaliland laba dhinac weeyaan laba qaybood ba gal doona qaybta nimkayga halka fadhida panelkeegana oo ah qaybta saxaafadda si guud saxaafadda Somaliland wax iska weydiin doono xuriyaddeeda hadalka mas'uuliyiin waaweyn oo ka kala socda dhinacyada kala duwan ee miidiyaha ruuqacdaayale telefishinadii dhalinyaradii baraha bulshada ku qori jirtay lawyerkoodii wata guuleeda marba arrimaha saxaafadda aad ugu dhadhow wariyaasha dabcan marka la xiro markasta qariiqanada u hadla kamida xaaladeedana si dhow ula socda aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa si guud koonahanba ka bilaabaya soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan intuu mahadsantihiin maanta halkan isugu timaadeen anagana farxad bay noo tahay maanta inaan ka wada hadlayno mowduuca ku saabsan xurriyadda hadalka ee wadankeena insha Allah panelkana waan salaamayaa wixii su'aalaha ka jiray iyo wadciga waan ka warrami doonaa waana mahadsantii waqtigiina anigu waxaan ka socdaa MMTV mudana saxaafadan ka shaqeynayay wadciga wadankana runtii inuu ugu filan waan kala socdaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن يردينا حفلتها لما قابسي كان سوق يبقى شيء مرت شرفتا ذلك ولا كنا كالصعوبة يوغندا runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad kala soo qayb galo xafladan waayo qodobkan hadda laga hadlayo qofku inuu xor u noqdo inuu sheego wixii isagu dareemayo waa ka aynu haraajka weynu qabnay maanta loo baahan yahay waynu haysanaa isticmaalkiisa inaan barano saaxiibka Charles haddaan u sharaxdaan la kaftamo wadankooda waxaa xukumayay Idi Amin idinku mala meedan baa maqala taariikhda meel ku arkamay wuxuu lahaa magaciisa qura tafdo waxa la fahaa الحاج بريسيدنت Idi Amin Tata wuxuu imajiri muqdisho malaab 10 jeer buu yimi waa beer saaxiibkii kale ayaa fadhiyay Maxamed Siyaad Barre ay isku hadaf haayeen labadaba dictator bay haayeen haddaan yaridu xusuusiyo nin saxaafiyo BBC da ka hadli jiray Ingiriisda oo dhinaca interviewga ugu caansanaa waxa la yiraahdaa Robin White ayaa walaystay intuu ugu tagay Kampala walaysigii uu ka xanaaqay Idi Amin dadna uu xirayba wuxuu xidhnaa 6 bilood 6 months buu xidhnaa
markii la soo daayey adduunka laga soo daayey markuu marayo Dar es Salaam Tanzania ayaa la waraystay Robbie White waxa la ka waran adiga iyo Idi Amin waxay dhex maray Idi Amin heshiis baan kala saxanay markii soo daynayay bas heshiiskaas muxuu ahaa inaan waxba ka sheegin inaan waxba ka sheegin baan ku heshiinay marka uu soo arkay cadaadiska kaynu aragnay mid labada soo aragtay laakiin Uganda waa dal walaalahayna waxaan leenahay you are not stranger here you are with our brothers I consider Ugandans as my brothers and really they are because it's the only country which all Somalis can go without visa and go to school, open their business, and live as any citizen, or as all Ugandans do. I know it. Though I live in Kampala, yes, I love it. Maybe in the future I will see it. marka inta haddan ka gudbataa inkastoo saaxiibkan soo dhaweynayay waxaan dii sheegayaa waxaan leeyahay oo inta soo qabqaabsiyo qoladana leeyahay waa fursad loo baahan yahay qofku inuu helo dareenkiisa inuu sheego qofkii caburinta soo marin baa la fahmi kara idinku waxa ku kowsateen oo dhalinyaradiina badan hadda ay ku kowsateen waa nagana si wanaagsanteena inagu aqawadeene iyadoo xorriyadda aynu haysano oo aynu hadli karno idinkaga tegi maayo waa anigu dawadeedana waa sidaa oo marka meelaha aynu ka wada hadlayno kolley waxaan ku daraa dawo wanaagsan laba cadow baa markaa inaga hortaagan inaga qarriba xorriyadeenna xorriyatul qowlka mid waa aqoon darrada waynu wax baranno u baahannahay aqoonta qof dhammeeyaana ma jiro qof kasta xafigiina waa arday abadaa he's a student forever inaan wax baranno waa loo baahan yahay markii uu leeyahay wax baro waxaa laga yaabaa inaad haysto masterate ardayda muxuu leeyahay odaygan laakiin aqoonta way korodhaa waa ogtiin hadda in maanta la maraya artificial intelligence ayaa caalamku gaarsiiyey hadda robis baa laga baqaya hadde in adiga lagu boorogaraamiyaa dhow adiga maskaxdaadan in la boorogaraamiyaa dhow marka waxaa la doonaya la socoto anigana hamoodin oday ka harsa waqtiga waa la socdaa maasha allah aad iyo aad buu mahadsan adeer maxamed xasan cali weji guuleed baan soo dhaweynayaa waqtiga inagu yar dartii su-aalahaynu iska gudageli doonaa axmed sheekeena si fiican wada garanaysaa malmalaynayaa su-aasha koowaad waxaan rabaa inaan weydiiyo guuleed waa sidee xadgudubyada ka dhanka xorriyadda somaliland ee saxaafadda dabcan loo yar waa tahay bismillahi raxmaani raxiim marka hore mahad celinaya cara adig iyo unsunba qabanqaabada iyo dadka kasoo qayb galayba xorriyadda somaliland ee saxaafadda wax muhiim ah ariga wajijaaga waynu haysanaa waynu qawadeynaa which means horumar fiican waynu haysanaa waxyaabo aynu isleenahay haydiin kordhaana way jiraan waayo bini aadamku markuu haysto wanaagsan waxaa wanaagsan inuu ilaashado kor u sii qaato iyo inuu ilaashan waayo dib uga dhaco labaduba waa wax iman kara marka xadgudubyo saxaafadeedna dalkeena way ka dhacaan oo hadday ka mid tahay ama xarig suxufi loo geysto warbaahin la xayiro xogtoo la siin waayo xagga right to informationka caqabado badan kala kulmaan way ka hortimaadaa mana aha space xidhan ama meel saxaafaddu aanay hadli karin maahe waa meel dhinaca kalena warbaahintu ay shaqaynayso inagan la hadlayna warbaahin xora marka sida freedom house ku cabirto somaliland waxay tahay waa partly free waa meel xorriyad ka jirto laakiin xorriyaddeedu ay tahay qayb marka inna way xidhan tahay inna way furan tahay halkaas baynu ku jiraa mar walbana ka waxa wanaagsan wixii aynu kusii horumarin karro xorriyadda saxaafadeena xadgudubyadana ku yareyn karaan inaynu ka shaqayno taasaa horumarka nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha hagaagaaba uu ku xidhan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay guuleed axmed baan soo dhaweyn doonaa wallaahi horta dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin saad igu soo sharafteen careedig media iyo ansom oo charles iyo tiimkiisa aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka sidaa guuleed uu sheegay iyo odaygaba uu ka hadlay mr weji waxa weeye xorriyadna waynu haysanaa welina waxbaa inaga dhimanoo weli marka la eego heerkii loo baahnaayo inaynu gaadhno maynu gaadhin adduunyada meelo badan oo ka mida marka waddamada adduunka la eego laakiin aniga aragtidayda waxaan isleeyahay markan u eego sida miidiyaha iyo telefishinada iyo warbaahinteenu ay u shaqaynayso malaha waxaanu meelaha ugu xorriyadda fiican baynu markay noqoto qaybtan
aynu kaga naalno geeska Afrika East Africa gaar ahaan Horn of Africa wadamada ku yaala wadamo badan oo Uganda ay ka mid tahay joogay bilihii dhaweyd oo aan tagay Djibouti oo kale tagay de waxa weey meelaha marka la eego sida aynu inagu nahay aad iyo aad baynu uga wanaagsannahay marka la qiimeeyo dadkan mar walba aniga lafteed waan la yaabay dadkan mar walba telefishinada taagana qaylinaya anigu media ku jira ayaa hadana la yaabay moogtay sida ay dadku u qaylinayaan isay mar walba TV-da u taageen microphone sitaan marka xukuumaddu waxa la oran karaa way ku tacadidaan marar badan dadka media ka shaqeeya iyo warbaahinta iyaga laftooduna tacadiye badan bay geystaan haddana media lafteedu nahay oo labada dhanba ma fayooba oo tacadiyada labada dhanba mas'uul bay ka yihiin laakiin mar walba waxa pressure la saaraya oo mas'uuliyadda weyn la saaraya oo ay ahayd iyagu inay mas'uuliyad weyn iska saaraan dawladda maadaama iyagu resourceski ay hayaan wixii ugu weynaa wadanka dhex yaala yihiin dadka laftooda mas'uul ay ka yihiin inay dadka wax baraan aqoontooda iyo wacyigooda inay kor u qaadaan marka dhaliisha weyn mar walba dawladdu ma aanu saari lahaa aad iyo aad buu mahadsan Axmed Cabdishakuur baan ku soo noqonayaa iyo isagu agaasimaha MMTV aasa telefishin ahaana khibradiisa inoo la wadaagi soo dhaw Cabdishakuur su'aasha waxay noqon saxaafadda sidee ay u adeegsadaan xeerka shideynaya xorriyadda saxaafadda nicmo horta waad mahadsan tahay waxaa kaloo mahad celinayaa Ansam iyo Careedag oo Ansam ka socda Charles iyo fursadana siiseenba mawduucan horta waa mawduuc runtii aad iyo aad muhiim u ah wadankeenuna qaabku u dhisan yahay iyo qaabka loo shaqeeyana waxaad moodaa waxoogaa difference inay u dhaxeeyaan marka wadanka shuruucdiisa la eego iyo qaabka u dhisay waa qaab dimuqraadi ah oo waxa la yiraahdaa ama Mareykankeenu la noocnahay ama Ingiriiska ama wadamada dimuqraadiyadda laakiin marka la doonayo in la sheego xorriyadda waxa lagu oranayaa Ethiopia iyo Uganda iyo Djibouti oo dad dimuqraadi ba ahayn ayaa laga yaabaa in lagu dheerarinayo xorriyadda haysano laakiin maadaama shuruucdeenu ay kuwa dabagelayaan horumaray waxay ahayd xorriyaddeena marka la qiyaasayana inaynu kuwa u eegno oo wadamada dib u dhacay ama aan la jaan qaadin dimuqraadiga aan tusaale inoo noqon marka waxaan aaminsanahay marka sharcigeenu sidoo u qoran la eego sidoo xorriyadda uu ogolaanayo sidoo u dhisan yahay ilaa hadda kowna lama joogaan uu aaminsanahay way jiraan dad xorriyadaha ay haystaan de ku xadgudbayo abuse sameynaya dawladduna waa abuse galaysaa shacabkuna waa abuse galayaan taasi waa wax uu eeg sharciga ku dhaqankiisa in lagu noqdo marka hore oo kala dambeyntii iyo qaanuunkii lagu soo noqdo laakiin sharcigeenu wuxuu nasiinayaa xorriyad wanaagsan haddaynu ku dhaqannana qof kasta uu nabadgelaya ma aha un wariyaasha quraata kuwa dhibaatada la kulma laakiin dadka TV-ga ka hadla qudhooda way la kulmaan way jiraan dad badan aan wareysanay oo markii wareysiga ay bixiyeen wixii ay ku hadleen loo qabsaday ama qof wax qoray qof kale oo share gareeyay ama comment ku qoray ama ka faala ka bixiyay hadhow loo dabagalay oo maxkamad loo geeyay waynu aragnay wadankeena way ka jirtaa inkastoo aanay badnayn oo numberku uu yar yahay laakiin qofku wixii uu TV-ga ka sheegay ama idaacadda kayda ama Facebook-ga in mararka qaar lagu qoonsaday waynu aragnay oo way dhacday waa inteeyo case waa qolyaha da waxa ururiya u dhigan tahay inay soo tabiyaan laakiin mararka qaar qofku waa inaanu ka fakerin waxaanu ku hadlayo in hadhow loo qabsan karo xorriyadda la cabirayana waa taas oo qofku aanu waran marka TV-ga ka hadashid ee aad dhamaysid maxaa kugu dhici kara marka wariyaashu inta cad way la kulmaan iyaguna mararka qaar xadgudub way geystaan waxoo dhanna waxay ku sugan tahay in sharciga inoo yaalo oo aad iyo aad runtii u fasaxaya arrimahan ay ka hadlayno saxaafadduna inay kaa raacaan dowladduna inay kaa ku ekaato laakiin haddii sharciga banaankiisa lagu shaqeeyo waxaan maraynay qofna ma mahadinayo waana waxa waddanka imika ka jira xorriyaddu waa la haystaa laakiin xorriyad lagu talax tegina way jirtaa tacadina wuu jiraa marka aan waxaan ku talin lahaa qaanuunka inta inoo qoran bay nagu filan inta haddaynu ku ekaano dowladduna way ku hagaagi saxaafadduna way ku badbaadi shacabkuna way hadli doonaan inta badan MMTV TV-ga gudoomiyahooda inta badan la xidho uu yahay ama wariyaal gobolada idinka soo warama dabcan kuwaasoo kale barka warasay uga tacaashaan marka xeerka saxaafadda loo eego walahi inta badan marka wax dhacaan cid la xidho ama maamul ama wariye ama ciidan dadka ugu badan dad la tacaala ama waa ciidanka ama waa laamahan kale ee cadaaladda inkastoo inta badan maaragtay marka dambe la iskula soo noqdo sharciga laakiin marar badan waxa dhacda iyadoo sharciga la isticmaalin in qofka xoog loo isticmaalo inaan qaanuunka loo soo marin in qaabka fulinta loo sameeyo sharcigu ay ku jirto xadgudub badan oo dawladda iyadoo ama waaran keeni karta ama procedure-kii caadiga ahaa ee qofka lagu qabanayay la mari karo sharciguna ogol yahay haddana de xooggiiba soo horeeya marka
qaanuunku si wanaagsan buu qoran yahay wariyaha iyo sheekha iyo qof walba waa la qaban karaa laakiin sifo loo qabtaa sharciga ku taala annaguna ka waan ku kalsoonahay media ahaan laakiin imka intan cases arkayay mid qura oo qaanuunka la maray ma jiro marka dambe qofka la soo deynayna waa la iska soo daayaa marka labada jeerba waxa weeyaan degdeg ba ka muuqda qaanuun la'aan ba ka muuqata waxa ka muuqata sharciga la saluugsan yahay dawladdu sharcigan ay wax ku tahay qofka markay qabatana sharciga way ku hayn kartaa dad badan oo sharciga la horgeeyno inta la hayo la soo daayana way jiraan oo sharciga hadii la geey lahaana oo sharciga wax ka heli lahaa oo laga yaabo ciqaab adag inay ku dhici lahayd marka waxaan u maleynayaa anigu saxaafaddu warwar kama qabto qaanuunku inuu ku adag yahay laakiin qaanuunka la isticmaalayna mid dhibaato ku qabaan marka anigu intan arkayay intii MMTV ku dhacdana taasun bay kamid ahayd inta imika laga cabanayaan waa waxa qaanuunka baalmarsan laakiin qaanuunkeenu uu ogol yahay mowduucan aan ka hadlayno in dee lagu dhaqmo maxamed xasan cali waji baan siinayaa iyo ka mas-uula xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda malaynaysa ama dhantaalaya laba dhinac baa ka mas-uula waan sheegay inaan kala MMTV waxaa loo baahan yahay marka la helo xiriirka qowlka in saxaafaddii ay qaadato wax leeyahay responsibility mas-uuliyad waan sharxi doonaa waa laba eray sharaxeedu qofkii wax laga sheegayay siyaasigana waxa looga baahan yahay tolerance dulqaad baa looga baahan yahay labada arrimood haddii la helo si fiican baynu isticmaali karnaa xorriyadda neefsano xorriyadda qowlka qofka siyaasiga waxa looga baahan yahay dulqaad u yeesho in wax la dhaliilo qofkan saxafigana waxa loo baahan yahay inuu mas-uuliyad qaado oo responsibility oo wixii ka caaganaa bulshadiisa maqalkooda xitaa dhagahooda ka ilaaliyo qaabku qofkan loo dhaqan lahaana yaqaan aqoonta had iyo jeer meelaha badanaa waraysigu ka dhaco ama dooda ku dhacana waxaa loo baahan yahay qofka inuu barto hadday tahay panel discussion oo kale inuu fadhiyo kala hadda tahay iyo hadday tahay waraysi dee mid wax gaaruu leeyahay ankarka qofka qaybinaya maarta dooda la bartaa hibana waa leedahay saxafiga waraysanaya interview ka qaadaya ama inanka qaadayaana dee waa inuu isna aqoonteeda leeyahay waxa la devil's advocate isagu wuxuu doonaya inuu war helo laakiin dariiqadii ku lahaa warka waa inuu isna yaqaanaa oo uu ka bilaabo wax la ice breaking horta qofkan uu waraysanayo waa inuu hantiyaa ma haynu la dagaalamo markiiba haddaan soo fadhiistay caynkaas tokanaa markiiba isna wuxuu iga geliyaa dhufayska laakiin horta qodobo aan ku soo kasbado waa in la helaa hal noqdo xitaa dharka uu qaataa inuu qurux badan yahay horta waxaan wada sheegay ammaantiisa dadweyn marka u gudbaa dhaliishiisa horta waa farsamada ta kale sida hadda saxaafadeena inaba aynu dee aqoonteenu bilow u tahay ayaa iyana siyaasiyiinteenna ay waxaanu bilow ugu yihiin marka isxaqaaqasho way jiraysaa adduunyada marka la eego xataa intaynu ka cabanayna inagu adduunka wax ka dhacay waxba kama hadda ka soo qaad Israa'iil waxay sheegtaa wadamada dimuqraadiga u waaweyn intii dagaalku ka socday waa la socotaan hadda iyagii Xamaas saxafiyiinta ay dileen waa 165 haddaan maanta wax ku biirmin iska daxarig baynu ka cabanaynaa inagu inta ay dileen ayaa 165 waana halkii la hadii dimuqraadiyadda Mareykanka iyo wuxuu ku jireen saxafku beelbol darbaaxada iyo feerku ku dhacay cadaadisku waa wuxuu baadi doonaya warka guushaadu adigu waxa weeyaan inaad warka soo hesho saddex arrimood baynu kula doodi karnaa madaxda haddaynu saxafiyiinta nahay wixii ka badan inaynu kula doonaa waa qalad diidmada warka ma laynoo diiday warka ma laynoo awood sheegtaa haddii qalad dhaco ma laynagu eegaa mise waa la saxaa marka mistakeska dalkeenu maraya waa dal soo koraya waa badaya inaynu wada saxnaa loo baahan yahay weliba waxyaabaha qaarkood aynu mararka qaarkood samayno hadday dhici lahayd waqtiyada qaarkood ilaahay ma tusaba maanta waxaynu haysanno waa very fertile waa dowlad yar oo aan aqoonsi haysan oo cadow badan leh oo ciriiriga ku jirta aynu ognahay inta dad soo hanqal taagaya iyo qaxar haysta aanu aragno waxa loo baahan yahay in wadaniyada ina gasho walaaniya xuduudda saxaafadda haddana waa inaad tahay wadaniyad marka Thatcher bay tiri markii la dagaalamaysay maxay jasiiradii ka dagaalamaysay waxay tiri markii la dagaalamaysay waxay tiri saxaafadda waa labo waa cadow bay tiri wixii naga soo horjeestaa waa cadow iyo saaxiibo marka saxaafaddu marka ay xaaladdu halkaas kala joogto
taasi xaq baad waleed dalkaaga inaad wixii u dhimaya aan la sheegin u adkaysta waxa ka dhimina gudbisaan idinkaa xilli ka saaran yahay iyo anigu intaan ugu weynahay inaynu wacyigelinta dadka maca siyaasiyiinteena siino in aynu nahay iftiin wax iftiiminaya ee aynaan lahayn cadow tudaala liinuga baahaya innaga inaynu u turno waxaa loo jeedaa saxaafadda you can say whatever you like waxaad doontaad odan kartaa macni waad qori kartaana haddii aad taqaano 4 things 4 shay taqaan habka loo yidhaaho meesha laga yidhaaho waktiga liyaho iyo cidda lagu yidhaaho afartaas weli ku kala soocan yihin for example hadda inan wadda maraysa raallihaga naablo oo dee iyada calaqdoona haddii nin guurdooni ka hor yimaado oo ku yidhahdo inaan ku guursadaan doonaya isagoo aqoonba maxay odhanaysaa ma hadda xunbaa baciid bay ku shubaysa waa la dagaalamaysaa waayo qaabku wuxuu ugu sheegay ayaan halku wax ka bilaabi lahayn marka inana questionskeena sida wuxuu weydiinna dadka iyo halkaynu ka bilaabayno iyo aynu dee cilmiyayno garanana aynu inana waxaan wada bilaabayno xeerka waa ka noo soo baxay intaasoo telefishan baa jira telefishanna iska daayay intaasoo social media aa jira maanta qaar sheegay markii arrintan ka hadlayno waxaan we are the most democratic country in the world because dadka xitaa waa la ayaa xaq u leh inay ka soo hadlaan social media iska daa kuwii markii qabay hataa kuwii waa la garaysa magaalada ula haysatay ayaa beejaj leh oo telefishan leh oo magafaa oo dadka dhageysanayaan cidda ka badiyay waliba oo marka waxaa jira halkaynu marayno iyo adduunka halku maraya isma laha waxaa jiray anagu markaanu beernay idinka leekayn maba lahaan muranba warka wixii xaajiga dhegihiisa u roonun baanu sheegi jiro maalin baa nin baa wuxuu igu yidhi nin baan ku qaslay war baan akhriyay duhur marka warka waxaa ku jiray item hal story baa ku jirtay runtii waa anigu ma aanan jeclayn laakiin waan ku qasbanaya inaan akhriyo markaan warkii ka soo baxay ayaan meel hodheelayn intaa lay soo dhigay dadkii meesha fadhiyay nin ka mid ahaa ayay gu yidhi mees maqli waxaad akhriyaysa markaan waan ku qaslay maxaad ku qaslaysaa anigu waan ku qasbanaabaan laakiin adigu maad iska xidhidba adigu kumaad qasbayada dhegeystee marka hadda dadkii shaydaankii la iska naari jiro meelan baynu dhegeysanaada kowdhe marka waxaan idin leeyahay ilaahay halkaan aynoogu soo hagaajiyo idinla muujiya adeer mas-uuliyad dadkeenna madaxdaan waxaan ka baraynaa inay dulqaad yeeshaan maasha allah aada iyo aad buu mahadsanyahay adeer guleed baan ku wareejinayaa markan soo dhawow guleed dabcan waxaan weydiin doonaa sidii loo joojin karo ku xadgudubka xorriyadda saxaafadda somalilan horta mid baa muhiima oo ah xorriyaadka hadday yihiin xorriyadda warbaahintu leedahay hadday tahay xorriyadda inagu baan leenahay inaynu cabasho in la mudaharaado xorriyaadkaasi waa wax dastuurka ku qoran oo dadku ay leeyihiin ma aha wax baryo ah oo xukuumadda markaa fadhida dadka inay siisay inaanay siinin inay doodgelin karto qofka yidhi inay jeceshahay iyo inay neceb tahay kuma xidhna waa wax qofku iska leeyahay xuquuq dastuuri ay tahay in qofku hadli karo warbaahintu inay si free u hadli karto dawladda daliili karto maagi karto cid maagaysa dawladda inay ka sii deyn karto halka koowaad ka bilaabmaysa waa taas oo ah in mar walba xukuumaduhu fahmaan inay tahay right waxaan xaq yahay xaq markaad leedahayna wax layla leeyahay oo laygu boolis gareyn karo la odhan karo ma si hagaagsan baad u tirimise maaha taasi waa number 1 weeye taasi qalooc badan baa inaga jira mar walba waxaad moodaa mas-uuliyiinta dawladdu inay u haystaan xuquuqda hadalka iyo warbaahinta privilege mudnaan qofku dheeraado ay siiyeen taas waa koobaad lagu ilaalin karo talabaad in isku xukunka sharciga la adkeeyo sababtoo ah in warbaahin
meherad ma warbaahin oo iska shaqeynayso iska furan dad intay soo galaan jijibiyaan oo qofkii haystay xidhaan waxay muujinaysaa in dowladnimada iyo xukunka sharcigu aad iyo aad u liito oo mas'uuliyad darrada ay sameynayaan khaashata dowladda u shaqeeya cid qabanaysa aanay jirin oo qofkii iska kibri karo qof mas'uul iska kibri karo marka waa in rule of law xoojino macnaheedu tahay in sharciga dalka u yaala kow dadkoo dhan ka sareeyo dadku ka sareeya ka mid ah anigana wuu iga sareeya inanka halkaa baalashka ku sameynaya ama inanta ku sameynaysana wuu ka sareeya madaxweynaha iyo wasiirka iyo taliyaha booliiska iyo kasudhanka militariga iyo waxaasoo dhan wuu ka sareeya waanu noo simanahay weeye number 2 oo waxaan anigu samayn karo lagu qabsan karo madaxweynaha waa lagu qabsan karaa wasiirkana waa lagu qabsan marka taas waa rule of law in la xoojiyo isku xunka sharciga loo jeeyo oo qofka kursiga ku fadhiyo madaxda ahi maayar barasa wasiir aanu ismoodin inuu isagu dadka ka sareeyo dadka leeyahay dabadeedna aanu la iman caqli badni cajiiba oo uu yiraahdo qofkaasi wuxuu yimina way khaldanaayeen kaasi wuxuu yimina way saxnaayeen sida uu isagu yahay superhuman dadka maaragtay ka sareeya taasna waa inuu samaysano saddex waxa jira hay'ado dawladeed oo say u shaqeeyaan aynu ka dhaxalay dawladdiisa aad bareenayno maalin walba maagayno laakiin weli sidoodii u jira waxa jira shuruuc aynu ka dhaxalay oo weli sidoodii u jira kuwaan in la bedelo oo la waafajiyo dastuurka Soomaaliland ee leh qofka Somalilandarka iyo qofka Somaliland jooga Somalilander kaliya ma xitaa shisheeyuhu xorriyad iyo xuquuqaad bay leeyihiin asaasi ah oo ay waxay doonaan ku oran karaan labana hal kala ilaaliyo oo marar badan isku khaldama mid waa xaq aan leeyahay midna waxa ethics kala xiriira iyo professionalism mata aan lawyer baan ahay xuquuqdayda qofnimo inaan hadli karo iyo inaan ahay qof xirfadayda qareennimo aan ku xadgudbin waa laba shay oo kala duwan haddaan xirfadayda ku xadgudbo oo khaladaad ku sameeyo oo aan lawyer xun ahay oo si xun u shaqeeyo taa macnaheedu ma aha inaan qofnimadeedii waayo xorriyadkaygii la diiday sidaas la mid qofka suxubiga haddaanu ahayn profession fiican sameynayno khalkhaldamayo macnaheedu ma aha inay dawladdu laysan u haysato inay xidho oo tiraahdo adigu si xun baad u hadlaysaa ama si xun baad u dhaqmaysaa dee dabcan marka TV-ga dawladda daawatid waad odhanaysaa dawladdu xaq ba u male inay professionalism waxa ka hadasho ethics iyo magaranaysaa kama ba hadli karto waayo markay TV-geeda iyo idaacaddeeda hagaajisatay noqotaan meel professional oo faalladu warku aanay ka baxayn dee wax qurux badan ka baxayaan ayay odhan kartaa television hebel iyo social media iyo maxaa ka socda marka arrin ethics maaha waa arrin xuquuq dawladdu mar walba waxay diidan tahay dhaliisha waxay diidan tahay maaga waxay diidan tahay codka adag ee dawladda lagu sameynayo taasaa gubaysa markay gubtana dabadeedna gacanta way ku dhufanaysaa wala ilaaliya taa meesha markaynu saa u hadlanay leenahay dawladdu hay saxdo malihiin saxaafaddu iyay isagaajin saxaafaddu waa dabcan inay sagaajiso waa inay professionkeeda xoojiso waa in doorka tafatiraha ma dhaweyd baan la sheekaysanayay Cabdinaasir audience-ka ah waxyaabahan anigu hadda dhowr iyo 10 sanadood baan arrimaha xuquuq insaanka ku jiray isbedelka aan arkayo markaad muddo dheer meel ku jirtid waxa ku muuqanaysa trendka qaadanaysa isbedelka aan arkayo waxa weeye warbaahintu markii hore waxay awood fiican saari jirtay tafatiraha warka marka la soo qaado qof ama cid baa eegi jirtay waxaan inuu bixi karo iyo aanu bixaynin hadda tii meesha way ka sii baxaysaa warka waa la soo qaadaya waa la sii deynaya marka tii waxay keenaysaa mararka qaarkood in la sii deynayo waxaad isweydiinaysid oo maxaa tolo loo sii daayo waxaan what is the meaning macnaha ku jira muxuu yahay marka warbaahin tana weyn taa ku dhaliilaanaha doorkiini soo cishada in wararka markaynu soo qaadaan cid tafatira ah doorka dul fadhiisato waxaan inuu wax macna leeyahay inaanu lahayn sii deynayo bulshadu inuu wax yeelayo inuu wax tarayo inuu sii deynayo waa run mararka qaar qof adagtiin xanuunsanaya caadi loo wareysanaya markaas mar dhowna mid kale xanuunsanaya u jawaabaya mise isna la soo wareysanaya markaas caruurtii yaryar aad soranaysa malaha warbaahinteena daawato ma waa in laga baqtiya because ilmaha yar waxaan adu daawado isna waxa ku dhacaya marka taas waa dhaliilaynu warbaahinta saarayno laakiin even markay waxa ku hadlayaan xaq looguma leeyahay in la xidho waa habab kale lagu saxaa jirta laakiin in la xidho albaabada la isku dhufto in suxufiga la xayiro taas ma jirto taw dambaysan ku soo koobay waxa weeye dhowrkii sano u dambeeyay waan ku yaraa laakiin intii say 9 sano ka horeeyay 2 sano u dambeeyay 3 sano u dambeeyay waxaan eegi jiray because xarunta xuquuqsanka beriga ka ahaa agaasimo dadka la xidho maxaa lagu xidhay baan soo gali jirtay waxa uu weynaan aragnay waxay ahayd suxufiyiinta kuwa aad diidaysid adigu lamaba xidhoba looma dhawaado waxa la xidhaa kuwa aad dadku jecel yihiin waxay ka hadlaan ayaa la sababtu waa maxay waxyaabaha waaweyn Soomaaliland la isku xidho waxa kamid ah corruption-ka kamid ah hadduu suxufi corruption soo hadal qaado oo dhamaatay ma aha hadduu xaayo la iska deynaya problem badan ma cidna lama hadlayso laakiin hadduu yiraahdo waxba something fishy lacagtii meel yar bay yara martay waa madaxa go'ay hadduu qof mas'uul la xisaabtamo accountability la yimaado leeyahay مثلا barasabki magaaladu hawsha caynkaas uu sameeyay waa la xidhaya marka xariga iyo khaladaadka suxufiyiinta wax xiriir oo ka dhaxeeya ma jiro hadaa doonaysid inaad caseska dul fadhiisatid practically wax xiriir oo ka dhaxeeya ma jiro tana waa ethics waa waxay tahay inaynu hagaajisano ka dawladda ay tahay inaynu hagaajisano ka private ka inaynu waliba ka dawladda ay tahay in canaanta la saaro because waa taxpayers money way oo cashuurteeni baa dadka lagu maagaya dadka lagu caaya wax lagu khalkhalinaya midna waa freedom of speech
waa xorriyaddan anigu lehay inaan madaxweynaha dhaliili karo dabadeedna markaan albaabka ka baxo aanan ka baqaynin in la xiri karo tvgii wareystay carre idagna aanu ka baqaynin in loo soo daato dabadeedna albaabada la soo that's for freedom of speech laga hadlayo dastuurkana way ku qoran tahay macaahidooyinka caalamiga ah ee Soomaaliland saxeexdana way ku qoran tahay marka waa in la ixtiraamaa taasi waxa jirta respect baa laga rabaa yaa la rabaa in ixtiraamto dawladda la rabaa in ixtiraamto hay'adaha kala duwan baa la rabaa in ixtiraamto haddii wax dhibsato de ha jawaabto ha hadasho iyaba waxa maagto no problem haddii doonayso waxa caydo way iska okay laakiin si warbaahinta xirxidho ma aad baa mahadsan gariiqaanku Axmed Seekan soo dhaweynaya isagu dabcan wuxuu ka mid yahay wariyaasha social media wax ku qora isla markaana loo xidhay isagoo wartabinaya magacan uu maanta inala hor fadhiyo Axmed Seekan jeerka kula baxay soo dhawow si guud adigu waa sidee xurriyadda hadalka Soomaaliland oo lintii loo qorshay waa hagaag aad iyo aad badan horta mahadsantiin dhammaantiin qodobadaad ka hadashay waa qodobo aad muhiim u ah guuleed laftiisu sidan imika u sharaxayay waxyaabaha dawladda mararka qaar qof wax yaroo fudud iri ayaa la qabtaayoo la xidhaayoo la dhibaateeyaa dee kayskeyga imika nicimi ka warramayso kale aniga laftaydu anu horta sidayda bannaanba waxaanay dadka nacab xadhigga iyo rabshada iyo buuqa iyo waxaa ma jecli xitaa inaan dadka fowdeeyo oo ama wax beena ama waxyaabaha noocaas oo kale ah dabci ahaan uma dhalan marka xitaa maalintaa lana xidhayo kale dee uma dhoweyn meeshii ay wax ka dhaceen shaqo iyo shuqul kama lahayn laakiin waxaa lay bartilmaameed saduun keliya in wejigayga lagu arko meelaha social media iyo wax soo wareegay mala taasaa sabab u ahayd in laysoo raad raaco oo dhibaatada laga geysto xorriyaddeedii laga qaado mushkilad laga geysto markii dambe 6 cisho kadib markaan xanaynna anu isla habeenkii waxaan moodayay in lana soo daynay moogta laakiin se waxaa la yidhi ma baarid iyo hawlaha jiray si yar fudud la iskuma sii daynay marka taa lafteedu waxyaabahan goobjoogga u ahaa bay ka mid ahayd dadkii bulshadiina way khalkhashay oo waxay ku khalkhashay qof kasta oo mobil la ordaya waxa la odhanaya qofkani waa wariye dadkii de citizen journalist ayaa jiro waxa weeye qofkii iminka halkaa jooga ee hotelka Chase hortiisa jooga haddii markaa wax dhacaan in case qofku live baa buu gelayaa oo videogii toos buu duubaya waxa weeye annagii warbaahinta waxaanan warkaynin ayuu qofkii si toos u tabinaya marka maadaama dadka badankiisa imika wariyaal iska wada yihiin gidigood waxa weeye dadkii uma kala socno qofkan waxa weeye professional journalist iyo citizen journalist qof xirfadii ku shaqeynayo ethics iyo wax inuu ilaaliyo ay tahay bulshada wuxuu la wadaagay waxa soo dhan aan loo eegin marka mushkiladaasina way jirtaa xorriyadda hadalka horta anu imika intan musabbixin bal aqliyeystay tii siilaanyo media kuma jirin iskuul iyo waxbaan dad ku jiray ardaydan iska ahaa marka imika dadka waaweyn oo kale markan warkooda dhageysto waxay dhahdaan xukuumaddan musabbixi malaha waxa ka fiicnaa kuwii ka horeeyay xagga xorriyadda marka la eegayo aniga lafteeduna marka taa waxaan sidoo malaha marka la eego dad tiimam dhalinyaro ah oo abaabulan oo madaxweynaha hadii wax laga sheego ama xukuumadda wax laga sheego kugu soo boodaya oo barihii bulshada jooga oo dadkii qabsanayo iyagu u arkay inay dawladdii iyo xukuumaddii aan raadiyaan dawladda xukuumadda dad ka soo dhaweysanaya dadka kale oo u arkaya in ama wadanka ay ka jecel yihiin dadka kale qofku hadii uu imika wax sheego dadana oranaya adu mabatiidba qof Soomaaliland darmatiid qof caynkana baatay marka waxa soo kala aragto waxa oranaysa malaha hoos u dhac weyn baa jira marar badanna sidaan hore u sheegay waxaan ilaahay ugu xamdi naqnaa inaynu dadkeen mar walba TV-da ummadan oo TV ka qaylanayso oo maalin walba microphone wax yar haday dhacaan suuq ay warbaahintii taageen oo ay hadlayaan waxaan eegay Soomaaliya eegay Djibouti baan eegay Cabdishakuur wuxuu yaan la soo qaadan dadka naga hooseeyo waa fikir wanaagsan laakiin saadana mar walba waxa jira waxyaabo ay isku dheeraarinayna moogta oo marka taa la eego wadooyinkeena iyo biyaha qaabka loo bixiyay iyo leerka iyo korontada iyo meelaha aynu idhaahno bal isku level bayna ama way naga yar hooseeyo ama naga sare ama cayn ka soo marka meelaha soo kale marka eego ma arag meesheena lamida ma arag wadankeena meel lamida sida dadku u hadlayaan ay u qaylinayaan warbaahinteena mar walba xorriyaddeeda la ilaaliyo aanay dadku dareemin inay baqayaan ama hadhow tala hadalkaad halkan ka leedahay ama meel kale ka leedahay in lagu raaci karo lagu dabageli karo dadka mid kalena nicmo way jirtaayo dadkeena inta ka baqata
tacaddi baa lagu geysanayaa iyo inta miidiyaha ilaashanaysa dana gaar ay leeyihiin waxa badan inta ilaashanaysa dana gaar ay leeyihiin marka dadkii waxay noqdeen interest oriented oo danay ilaashadaan badanka waxa weeye ama shirkadihii waaweyn ha noqoto ama xukuumadii ha noqoto anu imika ka baqi maayo in xukuumaddu ay xidho ama caynkan way xabsiyadeena waan garanaya waan soo marnayba waxa yaalan waan ognay inaan liigu jirdilay inaan liigu dhibaateynin inaan qof reer hebel noqonaysa waan garanay laakiin se waxa badan ay dadku ka fikiraan waxa weeye in wasaaradda hiblaayada wada shaqeyn yeelataan baad hadhow talo wada shaqeyntii waxyaabo noocaasin ka fikirna marka taasina waxa weeye waa qodob kale dhanka xorriyadda laga geli karo lafteeda axmed aad iyo aad umahadsay si guud bayna kaga waramay caqabadaha dhanka wariyaasha dambe socialka wax ku qora cabdishakuuro dhinacii tifiyada baan ku noqonaya mar kale maxaa xal ah baynu gabagabadina ku joognaa baanalka maxaa xal ah si loo ilaaliyo ku dhaqanka sharciga iyo fulinta xeerarka saxaafadda xaq u leedahay anigu waxay leetahay xalku oo dhan sharcigu ku qoran yahay sharciguna waxa weeyaan wariyuhuna inaanu sharciga u ogol inuu wariye yahay waayo qofkani dee record of science ma hawada ugu dirmaayo waa wariye uun certificate baa loo siiyey isagana loo xiray dadka inuu wareysan karo intaa inuu fahmo isaguna aan dadka ku tacadiyin oo meel walba waxa taagan wariye caraysan siyaasi la wareysanayo isna caraysan iyo qof muwaadin isna caraysan oo wax ka cabanaya marka xaaladaha caradu jirto sida loo gudanayo waajibaadku way ka duwan tahay marka kale dadku iska caadiga yihiin sidan oo kale aynu fadhino dadkan ka hadlaynaana waa markan xaaladu aanay caadiga ahayn bilmatalan marka wariye wuxuu soo hor qaaday waji Israa'iil in lagu dilay 200 dhadhow wariyaal waa xaalad dagaal inaguna xaalad dagaal kuma jirno marka xaalad dagaal ay tahay saxaafadu waa si gooniya ifan xitaa xaaladaha kale dawladdu si gooniya loo maamulo marka xaalad dagaal markay tahay waan isla garanaynaa oo meelaha imika colaadu ka jiraan imika wadankeena kamidaba miidiyuhu qaabay uga hawlgaleen iyo qaabaan uga hawlgalin ba jirta tusaale inooma aha waayo xaaladda lagu jiraaba colaada waxaan ka hadlaynaa xaaladda peacefulka ee degan ee wadanka lagu joogo marka halka la marayo yani xaalad dagaal jirin sharciga iyo qaanuunkana uu shaqeynayo dadkan qaanuunka la'aantii shaqeynaya wariyahan qaanuunka ka boodaya ee qofkii ama caayaya ama sharaftiisii waxyeelaya ama qofkan kale ee la wareysanayo ee ku soo talagalay dadka inuu wax ka sheego ama wax xun sheego iyo dadkan populationka ah iyaguna u diyaarsan inay wax khaldan gudbiyaan dhammaantood waa inay sharciga u soo laabtaan taana waxa kow ka warbaahinta shaqadeeda in loo daayo maanta qof waliba wuxuu u diyaarsan yahay inuu wariye noqdo mana doonayo sharcigii wariyanimada inuu ku shaqeeyo mobile fiican buu iibsanayaa magaalada bartankeedu tagayaa intii wariyuhu sameynayay uu isku dayay inuu sameeyo laakiin markuu bilaababa wuxuu qaldayaa wuxuu xaq u lahaa qofka hadlaya iyo wuxuu isagu sameeyo waayo wariyada ma technology-guna dad uu hagayaa islaamuhu iyagoo ama dhalinyarada ama ragga waaweyn suuqa jooga iyagaa sameeyay intii media sameyn laayeen meelaan live laga gelin bay ka soo galaan tension aan iyo xiisada loo baahnayn bay kiciyaan hadhowna ceebtu waxay ku dhacdaa bal media waxay sameeyaan ayaga waxaana laga yaabaa sheekada qofka bilaabay inuu media ba ahayn magacii markaa waa la dilaya oo waxa dilaya dad aan u tababarnayn oo aan liisan u haysan dawladuna ay ku daawanayso laamihii dawladuna wax laga yaabaa waxaan ku raacsanahay dafaac dadka ay ugaarsadaan waa dadka professionalka waa dadka professionalka ay musuqmaasuq soo dhacay garanayaan marka ka hadlaan xarig bay galayaan laakiin dadkan iska caytamaya iyo dadkan saxaafadda abuse garanaya dawladdu dan iyo muraadba kama laha haddii dib u eegno dadka la xidhayna dadkaas way ku yar yihiin inta badan dadka ciqaabta la kulmay waa dadka u tababaran ee musuqmaasuqa fahmaya ee siyaasiga la xisaabtamaya ee garanaya wadciga wadanku inuu wax ka khaldina wax ka khaldanayn ee su'aal keeni kara ee baaritaan samayn kara waa kuwa targetka ah ee la kulma tacadiga inta ugu badan dadkan iska muwaadiniinta ah ee wax walba qaldaya inta badan waxba lama kulmaan waana kuwa badan image-ka xumeynaya ciqaabna aan la kulmaynin laakiin wariyii tababarnaaye wax fahansanaaye hawshiisa gudanayay mar walba wuxuu ka cabsanayaa haddii mashruuca uu ka hadlayo sida loo musuqmaasuqeeyo cidda qaatay iyo sida la yidhi iyo sida wadanka xoolihiisa loogu tagrifalay haddii uu diiradda saaro markaba uu garan karaa wuxuu ku dambeynaya marka waxaa laga yaabaa wadanka xoolihiisa si xun loo yeelayo ama awoodiisiyo lagu xadgudbayo wariyihii tababarnay inaan waxba ka odhan karin laakiin nin siyaasi ahoo life soo gala inuu si fiican uga hadla laga yaaba
oo dabeetana isagu ereyadu isticmaalayaan ku suuq digayihiin laakiin sheekadii wariyaashu ka aamuseen isagoo meel fog joogay isagoo halkan joogaba uu yiraahdo sida la yeelay maaragtay dabeetana uu ereyo cayo u isticmaalo laakiin wariyuhu isticmaal lahaa ereyo wanaagsan sawirro wanaagsan buu isticmaal lahaa mar walba dawladdu ka indhaha u leedahay waa wariyaha tababaran oo ay og yihiin dadku inuu dhageysanayaan uu credible yahay wuxuu sheegay la rumaysanayo kan kale iska shacabka ah laakiin wax fahansan mucaaradad ama muxaafadnimo ku fogaatay isaga dawladdu waxba ma aragto simbar waa qof shacab oranaysa laakiin qofka wariyaha ah ee dawladdu u shaqeynaya ama private u shaqeynaya even xitaa wariyaasha dawladda u shaqeeya institutionkeedu ma baari karaan waxa wadanka ka jira resource fiican bay haystaan lacag wanaagsan bay haystaan credibility iyo sharaf bay leeyihiin laakiin kama hadli karaan wadanka haddii wax ka khaldamaan sababtuna waxa weeyaan shaqada uu markaa hayo ayaa laga yaabaa inuu waayay cawaaqib kala ku dhacaya marka wuxuu eegayaa warbixintan maxaa ka dambeynaya halka la leeyahay freedom of expression waxa weeyaan qofkani inuu cawaaqib uu ka fakaraya hadduu israado wax wadanka u wanaagsan ka hadal oo telefishinka qaranka ka siidaa oo la xisaabtan ku samee wasiirka wasaaradda warfaafinta haysta maanta hadduu wariyaha warfaafinta u jooga investigation ku sameeyo oo yiraahdo muxuu kaga wanaagsan yahay wasiirkii ka horeeyay oo yiraahdo muxuu kaga xun yahay waxa laga yaabaa by the time warbixinta dhameeyay in warqadiisu qoran tahay laakiin qof shacab banaanka jooga wasiirka uu ka hadli karaa dawladdu markaa loo waan orderka waa inaanay ku ciqaabin dadka liisanka loo siiyay inay maarta ka shaqeeyaan arrintan itigiskuna waa meeshiisa dhakhaatiirtu imika dadka way qalaan qaar baa dee dadka kala baxa kaliyaha iyo wadnaha dee waa itigiskii dhakhtarnimada si xun looga gudbay wariyuhuna intaa loo koobay hadduu ka baxo dhakhtarka dadka qalanayun buu la mid yahay isaguna waa inuu itigiska ku shaqeeyo itigiska la-aantii wax waliba waa waali media haddii itigiska laga siibo dee wax waalan buu soo baxaya dhakhtarnimada haddii itigiska laga qaado dad qalbaa meesha ka soo baxaya siyaasigu haddii itigiska ka tallaabo dee nin waalan dictatora meesha kasoo boodaya marka wax waliba waa law and order haddii qof waliba uu shalay gacanta ku qaato oo wariyuhu uu qofkan uu wareysanayo moodo inuu ka adag yahay oo wacay ku daldalo dee isagana waa la caayaya wax unbaa laga sheegayaa dabeetana qaanuunka la iskala fogaanaya laakiin qof waliba hadduu si miyir qabto qaanuunka uu isticmaalo wariyanimadaada si sharaf loo isticmaal dadkana ku ixtiraam inay yihiin qof aad wareysanaysa oo intaas ha soo dhaafin oo qofkii la wareysanayana uu u fahansan yahay waxaan la weydiinayo in laan la jujuubayna wuxuu mas-uul ka yahay ay tahay uu insan intaa raalli ku yahay dadkii shacabka ah wax nadiifa gaaraya oo iyaguna markaa go-aan bay gaarayaan wixii dhacayna way fahmayaan laakiin qof waliba hadduu isagoo maskaxda ugu duubantahay miidiyihii yimaado wariyihiina marka uu subaxii baxaya uu dee maanka iska sii qaado dee ummad nation dhan oo waalan ba meesha ka soo baxaya hadhowna dee ciidanka ku dhex dhacayaano wariyihina way xidhayaan kii la wareysanayay wixii o dhan dee jeelkaa lagu shubaya marka xalku waxa weeyaan qaanuun waynu haysanaa waxaasoo dee waxa qoran articalisa laakiin haddana laguma shaqeynayo dadka waxay ku shaqeynayaan awhaamtooda iyo fictionska iyo waxa maskaxda ugu jira ayaa qof kasta hogaaminaya dawladnimadii qof walba ku qaban lahayd markuu tallaabo isla markaba qaban lahaydna waxa laga yaabaa inaanay ku qiyaasaynin sharci baa jabanay laakiin qof dee isna cadhaysan baa sharciga fulinayo isaguna wuxuu tallaabayaa intii loogu talagalay in aada iyo aada runtii uga fogo oo maarata sharciga ku talax tegaya marka anigu xalka waxaan u arkaa dhammaanteen qaanuunka aynu kusoo laaban wariyow waxaad wariyaa tahay wax ka weyn ma tihid qofkan shacabkeeda wareysanaysid inaad wareystid unba xaq lagu siiyey laakiin ha u tallaabin shaksiyadiisa iyo wuxuu yahay iyo dee ha ku xadgudbin haddaad xadgudubto simbarisna uu kugu xadgudbaya dee tanaadna micnaha kaa tegaya wariye ma ahaanayside dee qofkii duraya hortaagan baa ta iska kaa celinaya marka inaad wariye un tahay oo aad itigiska ku shaqeynayso haddaad fahanto qofkana wuxuu kugu ixtiraami wariyanimo uu ku dhageysan qofka la wareysanayana isna inuu qaanuunka ku shaqeeyo waddanku inuu saxaafad leeyahay wax la weydiin karo wax laga su-aali karo wuxuu gacanta ku hayo opinionka shacabka loo soo gudbin karo isagoon iscadhaysiinin inuu fahmi karo waddanku inuu saxaafad xore leeyahay oo uu accountable noqon karo intaa iyaguna ha fahmaan dadka shacabkaana waxaan odhan lahaa shaqadan saxaafadda ha loo daayo idinkuna shacabo markay saxaafadda isticmaalaysaan ama opinionkiina laydin weydiiyo ama aad dawladda ka cabanaysaan ama media laftiisa ka cabanaysaan ee aad media ha u baahataan ee aad hor timaadaan idinkuna idinaan xadgudbinoo inta ay tahay ka isticmaashaan media ayaa iyaduna muhiima mid kalena waan ka digayayo inay isku dhex milmaan saxaafadda shacabka ay leeyihiin ama page ah ama qofku tiktok wax ku sameynayo
iyo saxaafadda license la siiyay xarumuhu u furan yihiin accountable ka waa sharciga labadaas inaan isku milmin oo soo jeedinaa qofku inuu imika baahin sameeyo telefoonkiisa inuu internet ku shubto dabeetana meel safe tago wuxuu doono ku hadlay ku xiranta loomana raacayo waa qof shacab laga yaabo qofku ku xadgudbay si personal inuu dacweyn karo laakiin meesha dawladdu license galaysay license soo saartay ee dadka shaqeynayaan de marnaba cudurdaar maraha hadda qaldanto tii shacabku kala maaha marka dadkuna ha kala fahmaan saxaafadda bulshadu iska leedahay marka horeba maqaaxiyaha laga yaqaan dadku imika TikTok ay ka hadlaan laakiin bariga hore inta maqaaxiya la isugu yimaado la wadaagi jiray wixii jira tii uun ba xaggan u guurtay marka miiriyuhu xil ka culus tan TikTok iyo Facebook iyo taalaba ka badan qof walbana waxa dan u ah loo wana kala dambeyn iyo sharci haddii la iskala gudbo weligaaba tiri waa waali kala marka sharciga loo soo noqdo qof waliba waa soo koobiyaa laakiin hal mar baan leeyahay maama carabiya waxay tahay darabani wabaka washtikani darabani wabaka washtikani waxa weeye macnaheedu intuu dhirbaaxay ayuu ooyey oo weliba dacwiyey oo de hadalka laga helay ogeeyey anu horta wasaaradda warfaafinta waa ka mid baan nahay weliba agaasimaha dhaqankaan nahay waana ka warhayaa maanta ilaa dee 60 sanoodna meesha ka shaqeynaya warfaafinta waxaan ogahayna maanta inaan warfaafinta cadowgii nahay saxaafadda cadowgeeda maaha maanta dee maalin ahaan jirtay way dhalinyarada ka shaqaysaana way idinla wadadaa waad joogtaa barnaamijyada ka baxaana waa aragteen iyo doodaha iyo wax walba laakiin waxaan taagannahay sidii ninkii yidhi saanu yeellabaanu eednaa saanu yeellaba saanu eednaa wuxuu ahaa nin gabadh walaalkii ka dhintay oo doonaysay inuu dumaaladii ka dhagaadeegay dabeedna xoolihii kalkii horri waraabinayay ayuu isiri horta yani ku kawkobin biyaha kuwaagu ha dambeeyeen kuwii agoontii hormariyey markaasuu maqlay iyadoo leh wax hore ninkii lahaa dhintay biyaha lagu dilaya iyagoo kulul baa la siinaya marka waa calaanatay kalkii dambe ayuu kuwiisi horreysiyey wuxuu maqlay iyadoo leh madan baa laga leeyay raggeedi baa wada sanidba kuwana hadaad baa lagu dilaya markaa isagoo biyo suuba yidhi saanu yeellaba saanu eedne waa sidaa idin mid muhiimaya we are your friends wasaaradduna wasaaraddiinnii talada raggeedii see lahaa waa idinka kuwa wax idin balay idin sheegaana waa annaga una macallimiintiinniya annaguna waan ku faraxnaa aqoonta hadda aa leediin waxaase aynu u baahanay kulligeenba inaynu gacmaha iswada qabsanno oo qaladaadkeenna si caafimaad qaba wada saxno saxaafiga intigiska ka hor waxaa saaran mas-uuliyaddaasi maxay tahay saxaafiga waa media waa wado ereygan media waa wado waxaa wadadaasi u dhaxaysa qofkii warkan sameeyey aad ka soo tabanaysay iyo kaad gaarsiinaysay adigu kuma lihid inaad ka dhex muuqato adigu labadooda inaad kale xata ma lihid idinkana markaa midkaan lii sheegaya waxaa weeyaan oo annaga taayadii dee kuma tuuntuusato oo hadda ka daba tegi maayo waa annaga waayeel dacan waxaa nin weyniya musba de wax daa lagu tuuraa laakiin waxaa lii sheegayadna hal shay baa idin qaribaya oo credibility idinka luminaya waa kaanu ka caafimaad qabnaa anagu waxaa kaloo dhan anagu sheegtaan waa qabyaaladda reer hargeysa loodhan maayo reer baale hadda dowladda alla haliyo waa magac weyn laakiin wargeysadeenni iyo telefishanadeenni waxaa u muuqataan qabyaaladda iska ilaaliya be independent ka noqda xorriyaddiinu mid taagan oo xola wixii kale ku doodaysa ku dooda ereyga freedom of expressionna waxaynu ku qaadnay saxaafadda qura wuu ka weya ereygan waa xorriyaddii qofka bini aadamka hadduu saxafiya haddaanu haynba somaliland maanta taa xor bay ka tahay islaanta ceesaani ka lunta galabta waxayse soo taagaysaa waxbaad aragta ilaa madaxweynahay u dhaaranaysaa ceesaanteeda haddii lii keeni waayo ta dhacday waa arki doontaan xorriyaddaa meel adduunka laga haysto ma leh waa freedom of expression aniga maxamed hadda waxaana humanitarian activities way iga war haysaa oo xuquuqda ayaan u doodaa
dadka la caburiyo halkan insaan uga hadli karo meel kale oo jabuuti kama hadli karo jigjiga kama hadli karo joob kama hadli karo xuquuqdeeda laga sheego mushkiladaasina way ka wada taagantay ama waxa kule dawladdeeda ummadayda inta badan doctor la sulay inay cabashadayda anigu aan xaq u leeyahay inay dhageystaan waan ku faanaa inaan oran karo wixii aan tabanay oo la iga dhageysan karo marka waynu haysanaa ereyga aan sheegayun baa jira waynu qawadaynaa sidaynu u badsan lahayna aan fuligeed qaban kulligeen naas wada kaashan aad iyo aad baa mahadsantiin dhammaantiin baanalkii kale isaguna si guud saxaafadda marka laga baxo Somaliland oo dhan bayna sugay qoladii kale iyaguna baanalkan saxaafadda intaas inoogu eegyahay dabcan banaanka inaan baa joogta inoo sawiraysa painting amba sawir gacmeed ay kaga hadlayso xuriyadda iyadoo inoo soo eegi doonaa inteenani waad mahadsantiin soo dhawaada